si walba waa inoogu soo hanjabeen laakiin lama cabsi geli doonaan Mareykanka iyo Midowga Yurub weligoodba waxa ay la jireen Greek laakiin si walba ay tahay Turkiga waxba kama aysan qaadin waxaan kugu baaqayaa mudane madaxweyne Xasan Ruuxaani inaad ka shaqeyso sidii xiriirka loo hagaajin lahaa dalalka Iiraan iyo Turkiga waayo xilka ayaa banaynaysa waxaynu doonaynaa inaynu iska kaashano cadowgeena aan ogoleen in dalalka islaamka qaarkood ay yeeshaan quwad sare leh waa madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo qadka telefoonka kula xiriiray Arbacadii dhigiisa dalka Iiraan ee xilka ka degaya 3 bisha Agoosto waxa ay ka wada hadleen xiisadaha ka taagan wadamada Greega iyo Turkiga iyo dhilada colaadeed ay dabada ka reexayaan Midowga Yurub iyo Mareykanka Turkiga ayaana iminka muujiya quwad sare oo ku wajahayo dalalka reer galbeedka beejkan ku soo biir oo leexar flowda siina share garay warbixintan sidoo kale linkigeena hoose raac oo subscribe saar YouTube-keena Calan TV kuna soo biir oo rukuma mahadsanid aynu ka horeyna madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa bilaabay tillaabooyin degdeg ah oo uga jawaabayo hanjabaado iyo cambaareyn isxiga oo uga yimid wadamada reer galbeedka war-saxaafadaha si wada jir ay u soo saareen Midowga Yurub Mareykanka iyo Greega ayay ku cambaareeyeen hadal uu dhawaan ka sheegay madaxweyne Erdogan wadanka Turkiga taasoo ahayd in Qubrus xalkeedu uu ku jiro in laga sameeyo laba dawladood oo kala madax banaan arintaas Mareykanka iyo reer galbeedkuba waxay ku tilmaameen mid fool xun oo aan waafaqsanayn dhammaan qaraarada golaha ammaanka qaramada Midoobay madaxweyne Erdogan oo arintaasi ka jawaabaya wuxuu dirbadiiba raadsaday iskaashi caalamiga oo dhinaca dalalka islaamka dalka ugu quwadda weyn marka loo eego wadamada ku abtirsada islaamka ee Iiraan ayuu kulan degdeg la qaatay madaxweynaheeda xilka ka sii degaya 3 bisha Agoosto ee Xasan Ruuxaani kulanka oo qadka telefoonka ku dhacay waxa uu dhacay galinkii dameetay Arbacada labada madaxweyne waxay isla falanqeeyeen maraaxiisha kala duwan ee iminka ka jira dalalka islaamka intii kulanku socday waxa lagu soo hadal qaaday arrimaha ka taagan Qudus kuwa ka taagan Greega iyo Turkiga iyo xiisadaha guud ee dalalka islaamka ka jira Turkiga ayaa u bandhigay Iiraan in la doonayo xilligan in iskaashi guud ay yeeshaan wadamada quwadda leh islaamka si ay uga hortagaan waxa ugu yeeray kuwa aan doonayn in la sameeyo dalal muslimiin oo ciidamo iyo tayadoodu wanaagsan tahay Recep Tayyip Erdogan ayaa ku yiri madaxweynaha xilka banaynaya ee wadanka Iiraan Xasan Ruuxaani mudane Xasan waxaad ogtahay in Mareykanka iyo reer galbeedku si walba ay iskugu dayeen inay Turkiga gacmo qabtaan oo ay diideen inaan soo iibsano hubka casriga ah balse ugu dambeyntii anagu hubkeena waanu samaysanay dalkeena iyo dadkeenuna waxay ka maarmeen inay ku tiirsadaan dalal hesheeye balse taasi kama dhigna in Turkiga kaligiisu u babac dhigi karo dunida oo dhan laakiin wuxuu u baahan yahay iskaashi caalami ah oo uu ku wajaho sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada ka jirta dalalka islaamka aynu doonayna inaan wax ka qabanno waxa kamid ah dhibaatooyinka lagu hayo shacabka wadanka Falastiin kuwa lagu hayo shacabka ku dhaqan wadamo kala duwan oo ay kamid tahay Russia oo muslimiin ah iyo sidoo kale dalal kala duwan oo muslimiinta lagu dhibaateeyo oo ay kamid tahay Faransa waxaanu doonaynaa iskaashi dhaxmara dalalka Turkiga iyo Iiraan madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa laga soo wariyay inuu aaminsan yahay in dalalka islaamku hadday sameystaan qorshe midaysan iyo aragti in dhammaan ay ka guuleysan karaan caqabad walba oo uga timaada dunida Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in loo baahan yahay in Turkiga Iiraan iyo wadamada kale ay sameystaan iskaashi caalami ah si ay uga hortagaan wax walba oo liddi ku ah dalalkooda iyo sidoo kale dhibaatada lagu hayo dadka muslimiinta ee caalamka ku nool kulanka dhaxmaray labada madaxweyne ee Turkiga iyo Iiraan ayaa lagu lafaguray sidoo kale sii wanaajinta xiriirka u dhaxeeya labada dal madaxweynaha xilka ka degaya ee wadanka Iiraan Xasan Ruuxaani oo la filayo inuu xilka wareejiyo 3 bisha Agoosto ayaa u sheegay madaxweyne Erdogan
inuu kala shaqeynayo madaxweynaha cusub ee dalkaasi Iiraan sidii xiriirka loo wanaajin lahaa labada dal ee Turkiga iyo Iiraan iskaga kaashan lahaayeen arrimaha ku saabsan xiisadaha dunida ka jira gaar ahaan dalalka Islaamka. Recep Tayyip Erdogan ayaa tilaabadan qaaday wax yar oo kadib markii la soo wariyay in dawladda Gariiga ay heshay 18 diyaaradood oo nooca dagaalka ah. Diyaaradahaas oo ay ka soo iibsatay dhinaca Faransa waxaana gacan ku siiyay Midowga Yurub iyo Mareykanka. Diyaaradahan waa kuwii ugu dambeeyay ee casriga ahaa ee ay dawladda Faransa soo saartay, waxaana la sheegay inay loogu arko diyaaradahan gudaha wadanka Gariiga inay yihiin kuwo u babac dhigi kara dhaqdhaqaaqyada Turkiga uu ka wado badda Mediterranean-ka. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan waxaasoo dhan dawladdiisu waxa ay muujinaysaa inaysan waxba u arag. Wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga waxa uu sheegay in isku dayada ay wadaan wadamada reer galbeedku aysan wax weyn u arag Turkiga, isla markaasna ay gacan bira ku qaban doonaan cid walba oo isku dayda inay soo farageliso maraaxiisha kala duwan ee xilligan Turkiga uu ku wajahayo Qobrus. Dhinacyada Turkiga iyo Gariiga xiisadoodu waxay u muuqataa in mar kale cirka isku sii shareerayso. Dhaqdhaqaaqyo xooggan ayay wadaan ciidamada kala duwan ee Turkiga iyo kuwa Gariiga. Boqolaal diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa la arkaya iyagoo dhoolatusi ka sameynaya qaybo ka mid ah saldhigyada ciidamada cirka ee wadanka Turkiga. Warbaahinta gudaha dalka Turkiga ayaa ku warantay in dawladda Turkiga ay u aragto mar walba qatarteeda inay ku sugan tahay badda Mediterranean-ka, maadaama ay wadamada reer galbeedka gaar ahaan Midowga Yurub ay cadaadis xooggan soo saarayaan Gariiga iyagoo doonaya in hoos loo dhigo awoodda sii kordhaysa ee Turkiga. Mareykanka ayaa isagana wasiirka arrimaha dibadda u hadlay waxa uu sheegay in Erdogan uu ku sifoobay inuu dhammaan hareer maro qawaaniintii dunida u taalay asagoo doonaya in xeer u gooniyo uu ku maamulo caalamka. Arrintani waxay Turkiga kaga dhigan tahay inuu mar kale wajahayo xaalad kale, balse horey Turkiga waxa uu ku guuleystay inuu ka hortago dhammaan dhaqdhaqaaqyadii ay wadeen reer galbeedka Mareykanka iyo sidoo kale Gariiga. Waxayna taasi noqotay in ugu dambeyntii ay xiisadu si iskada u degto kadib markii ay ku guuldareysteen ciidamada isgaashaan buureysanaya ee Gariiga horkacayay inay wax ka qabtaan tillaabooyinka Turkiga uu ka qaadayo badda Mediterranean-ka. Turkigu waxa uu ku hormaray dhanka tiknoolajiyadda casriga ee ciidamada, waxayna reer galbeedku iminka u arkaan qatar weyn oo sii kordhaysa. Mareykanku waxa uu doonayaa in Midowga Yurub iyo Gariiga uu soo dhaxmaro si uu ogaado awoodda sii kordhaysa ee Turkiga halka ay gaarsiisan tahay. Tijaabada koowaad ee Mareykanku doonayo ayaa ah in dagaal uu ka dhex qarxo Gariiga iyo sidoo kale Turkiga, halkaas oo uu arko halka ugu fudud ee laga soo gali karo dagaallo lagu burburi karo awoodda Turkiga. Balse taasi ilaa iyo haatan ma muuqato oo Turkigu waxa uu xiray dhammaan xuduudihiisa ay suurtagalka tahay in Gariiga iyo asagu ay ku dagaalamaan. Waxayna taasi suurtagali weysay inay dhammaan heeladka soo galaan diyaaradaha Gariiga iyo wadamada taageera ee reer galbeedka gaar ahaan kuwa Midowga Yurub oo iyagu dhowr jeer damcayna dhoolatus ka sameeyaan Qobrusta Gariiga taabacsan. Mar walba iyo saacad walba halka nagala soco ku soo biir oo si sheer garay wararkeena.